laba qodob weeyaan xigeenkii hore amniga Soomaaliland oo muddo iska xidhan qofku xaq loogu leeyahay cadaalad Cabdullaahi Abukar haduu qaranka dambi ka galay annaguna dambi buu naga galay waliba anagoo Jiidali dambi buu naga galay way anagu qarankan ka midnahay iyo ummadan hadii aanu laakiin dambi galin xaq darro lagu haystaa waa xaraan in xaq darro lagu haystaa laakiin cadaaladda hal hor keeno cid ka cabanaysa cadaaladda hor timaado qodobka kale aan doonayna ka hadlaa xawayaan Nicholas Kay maalin dhaw tolaalkan laba mid baan kala garaway inay Soomaaliland ka noqotay Soomaalilandnimadii iyo Nicholas Kay xafiiskiisii uu ka noqday mabdii uu ku approach gareynay Soomaaliland Nicholas Kay wuxuu ka shaqeeyaa ama xafiiskiisu uu qabtaa Soomaaliya wuxuu kala shaqeeyaa habka federalismka qaybinta gobolada waad aragteen waxa Soomaaliya ka taagan saxaafadda ka socda waxa kaloo ka shaqeeyaa sidii uu u hirgeli lahaa ama uu u dhaqan gali lahaa dastuurka Soomaaliya marka dastuurkii Soomaaliya afti halkan looga qaadaya madaxweyne Silaaya ka noqday qarankeennii Soomaaliland mise Nicholas Kay baa ka noqday waan kala garan waayay taana ilaa imika oo aynu maanta taaganahay wali xukuumaddu meel cad kama istaagin mabdii uu la yimi iyo wixii lagu kala tagay Nicholas Kay wuxuu ka shaqeeyaa xafiiska humanitarianka ee UN-ta waxa kaloo ka shaqeeyaa xafiiska policy-ga Soomaaliya ee UN-ta labadaba isaga mas'uulka waa maxay marka ujeedada uu halkan u yimi maxay tahay maxaa lagu kala tagay ilaa imika ma garanayo madaxweynihii qaranka waxay noogu dambeysay maalinta codkayna weydiisanayno in la hadlo intuu bulshada soo hor istaago oo yiraahdo war halkaas ay wax marayaan maalin boqof shaqaalaha baan soo diray la hadlo kuma qancayna madaxweyne ururka Jiidali dalku isagu ka dumaya kuma qancayno waa inaad meel cad ka istaagtaan haddii qaranka laga noqday socon mayso nin walba waalidkii baa ku soo dhintay meeshana ubax dadka laguma keenin dhiig baa lagu yimi halkan laga noqon maayo ururka Jiidali naftu u horaya wallahi haddii qaranka laga noqdo ilaa la cadeynayo taana kuma doon ka soo horjeedna dhacdaana u leenahay ilaa la cadeynayo in laga noqday halkan qarankii aynu isku ogeyn ee burco lagu saxeexay iyo inaan laga noqon wassalaamu calaykum